afhayeenka ciidanka difaaca Tigray General Gabriel Sadiq oo saxaafadda deegaankooda la hadlay ayaa sheegay inay si fiican uga warhayaan ciidamada deegaanada laga soo ururinayo isla markaana ay marin doonaan meeshii ay kuwii ka horreeyay iyaga ee deegaanka Tigray ku soo duulay ay mariyeen. afhayeenka ayaa xusay inay ciidanka difaaca Tigraygu meel saareen ciidamadii militariga dalka Itoobiya, kuwii Eritrea, kuwii Soomaaliya, maleeshiyaadkii Axmaarada iyo liyugoodiiba, kuwaasoo boqolaal kun kor u dhaafayay kuna hubaysnaa dabaabaad nooc walba, taangiyo, hubka culus, gawaarida gaashaaman, helikobtaro, drones iyo wax walba. hadaladii uu afhayeenku saxaafadda kula hadlay waxaa ka mid ahaa aad baan u naqaanaa qaabka isbahaysiga dulmiga wada loola dagaalamo, xeelad sare oo dagaal iyo halyeeyo u tababaran sida cadowga loo jilba joojiyana waan haysanaa, kuwaasoo ku hubaysan kalsoonida shacabkooda islamarkaana difaacaya sharafta iyo karaamada taariikhiga ah ee dadkooda Tigray ay ka dhaxleen waalidiintood. isagoo hadalka sii wada wuxuu intaas ku daray waxaan nahay kuwa wax jilba joojiya ee aan iyaga la jilba joojinin haba yaraatee. wuxuu afhayeenku intaas ku daray maxaad u malaynaysaan wiilasha militarigii Itoobiya iyo kuwii Eritrea cunay macaltaangiyadoodii inay u daahi maleeshiyaadkii ay shalay iyagu tababareen ee ku soo socda. aad baan idiin soo dhaweynaynaa waana idiin adeegaynaa cid walba oo dhiigga shacabkayaga u ooman iyo mulkiga dhulkayaga inay Axmaaro siiyaan oo garab kula ahnaa waxaa dhulkayaga uga qodan qubuuro aan laga soo noqonin. fiicnaan lahaydaa inaad dhulkiinii joogtaan ood nabad ku ahaataan. haddaadse diideen kaalaya buuralayda aan ku qoray taariikhda dhiigga ku suntan ee ilaa Talyaanigii isala taxan. soo dardaarma sababtoo ah fursad lagu dardaarmo ma siino kuwa dhiigga ummadeenna u soo haliila, waxaana dhulkayaga idinka qodan xabaalihiinnii. waa la soo galaa dhulkayaga ee meel looga baxo ma laha haba yaraatee. afhayeenka ayaa hadalkiisii intaas ku soo xidhay.